xubno ka mid ah culimada waaweyn ee diinta ee gobolka Togdheer oo uu ka mid yahay gudoomiyaha guud ee gudida wanaag farista iyo xumaan reebista Somaliland ayaa ka hadlay falalka isugu jira dilka iyo kufsiga ee lagula kaco haweenka oo muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanayay gobolka Togdheer Somaliland iyo deegaanada Soomaalida. Culimadan ayaa cod dheer kaga digay dhaqanada noocan oo kala ah waxaanay ku baaqeen in cid kasta oo falalka noocan oo kala ah ku kacda talaabo sharci laga qaado. Culimada oo hadalkooda sii wata ayaa sida oo kale ka hadlay xuska iyo munaasabadaha loo qabto hadahan oo kale sagootinta sanadka milaadiga ah iyo soo dhaweynta ka cusub, waxaanay hoosta ka xariiqeen culimadu in aanay banaanayn diiniyan in la dabaaldego ciidaha gaalada. loo dabaaldegayo maanta ciida Christmas dayga iyo marka maalmahoodaba diinta waxa weeye waa xaraan bay ku tahay, dadkeenana uma banaana muslim mar hadaynu nahay. marka xukunka in lagu dhaqmo shacab iyo dawlad dhalinyaro haween iyo marka dad waaweynba ayaa loo baahayo maanta kelmaddan isla taagnay waa taa weeye. waxa kale oo ka dhalanaya xumaamo badan baa ka dhalanaya. inaku laba ciidood been leenahay, ciida marka al-adha iyo ciid al-fitr been leenahay in la weyneeyo oo Ilaahay inoo sunneeyo rasuulku inoo sunneeyo kaleey salaatu wasalaam. marka dad gaala inuu raacno meesha ma taalo. waxyaalaha marka imanaya marka loogu gabanayo waxa kamid ah inay dalxiisaan, in magaalooyinka habla iyo dumarka iyo haweenku iskala baxaan iyo ciyaalku iyo dhalinyaradu in marka ay xaflado ku sameeyaan hudheelada waxaan u soo jeedinaynaa in arrinta iyaga laftoodu marka hay'ad ahaan ay iska ilaaliyaan oo wixii marka Ilaahay agtiisa ku wanaagsan ay ka shaqeystaan oo marka arsaaq ka dayaan, wixii marka fasahaad iyo munkar keenayana in ay ka dheeraadaan. diinteenu taasi adkaynaysa. waxyaalaha soo kordhay waxa kamid ah marka arrintaasi dhalayso in marka dhalinyarada isdhex gasho, in isla baxaan, in marka kufsigii batay, in dilkii batay oo inaan la leeyahay waa la kufsado haddana waa la dilay. bariga hore kufsiga weyn maqli jiray, waxaad moodaa wax caam ku noqday marka Soomaali oo dhan caam ku noqday. waxaan leenahay gobol ahaan iyo wadan ahaan iyo guud ahaanba haddaan laga waantoobin arrimaha iyo waxyaalaha gaaladu dhoobdhoobayso ee marka lagu raacayo natiijadeedu waa noocaas oo midhan baa ka soo baxaya. wuu kufsaday haddana wuu dilay oo naftiibu ka jaray, waana soo qabanaya waa la ogyahay oo nin baxsanaya ma jiro. waxa weeye wax la yaab la weeye. burcay ka dhacday, Caynabay ka dhacday, Laascaanood bay ka dhacday, Caabud Waqo bay ka dhacday, Camar bay ka dhacday, Boormay ka macnaa meel aanay ka dhicin ma jirto. waa dhaqan xumo nagu soo kordhaysa. si awgeed haddeenaan dadkeena wax garad iyo culimada iyo dawladda iyo shacabka aynaan ka hortagin arrintaas oo dadka u sheegin deena ka lafteena marka dambigii wax ka inaga soo gaaraya. si awgeed waxaan leenahay hay'adaha ammaanka ee arrinta khuseeya ay khusayso oo booliska iyo wasaaradda awqaafta iyo marka arrimaha gudaha iyo kuwa dhalinyarada intaba inay ka hawl galaan oo fasaadka inaga ilaaliyaan. 25ka bisha December ilaa laga bilaabo laguna gaaro kowda bisha koowaad sanad walba bilowgiisa gaaladu waxay leeyihiin Kirishtaanka iyo wixii la halmaali waxay leeyihiin dabaaldeg ay u dabaaldegayaan oo ay weyneynayaan. weyneynta ay weyneynayaan waa arrin diin iyo caqiido salka ku haysa ma aha farxad iska caadiya, ma aha waa arrin diin iyo caqiido salka ku haysa. qofka muslimka ahina waa ka xaaraan oo uma banaana gaalada inuu ku waafaqo ama uu ku raaco dabaaldegyadooda haddii ay yihiin kuwa diiniga ah iyo in loo dabaaldego kuwa diiniya. haddii uu raacayo oo uu la dabaaldegayo oo uu la farxayo qanacsanaan uu ku qanacsan yahay ama uu filayo ama uu caqiidaysan yahay diintoodu inay sax tahay, taasi qofku marka uu sida caqiideeyo diinta islaamka uu ka baxaya, gaal buu ku noqonaya. haddiise aanay diintooda uu raalli ka yahay aanay jirin laakiin uun iska qalidasho iyo dabagal iyo dabadhax iyo wax lamida ay tahay, taasina waa shay muxarama oo aan banaanayn culimada islaamkuna isku waafaqsan yihiin. muassasaadka dacwiga iyo culimada gobolka Togdheer ay isugu yimaadeen in mujtamaca iyo bulshada qaybaheeda kala duwan masalada loo cadeeyo xukunkeeda, talooyin iyo nasiixooyin la siiyo, iyada oo mar walba culimadu iyo muassasaadka dacwiga kala duwan bay u taagan yihiin sidii mujtamaca iyo bulshadu ay u islaaxi lahayd, danahooda adduunyo iyo kuwooda aakhiraba ay u libaani lahaayeen. ilaahayna subxaanahu wa ta'aala waxaan weydiisanaynaa in tawfiiqda iyo khayrka iyo wanaagga uu waafajiyo.